hogaamiyaha ugu caansan dunida loogana baqdin qaba adeegsiga hubka sida weyn wax u gumaaday ee nukliyeerka Kim Jong Un. maxaad ka taqaanaa caadooyin uu kaga duwan yahay hogaamiyaasha kale ee caalamka? halka uu degan yahay, dharka uu labisto, fariinta hanjabaada ah ay dirayaan aabihiis oo kaga horeeyay hogaanka dalkaasi, caadooyinka uu ka dhaxlay iyo cuntooyinku ay adag tahay in dunida si fudud lagu helo uu aadka u jecel yahay ayaan warbixinta muuqaalkan daawadayaal ku soo baahin doonaa. kahor waxaan ka codsanayaa inaad janaalka aad ku soo biirto aad follow aad tiraahdo muuqaalkan aad like aad saarto saaxiibadaada kalena aad u sii share gareyso. mahadsanid. Kim Jong Un waxay inta badan caanimadiisu ay soo shaac-baxday hanjabaadyo u dir reer galbeedka iyo sidoo kale dalweynaha Mareykanka. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha caalamka galaagalka badan ku leh, taasi oo ay jiraan dad aad u jecel isaga iyo sidoo kale dad aad kaga baqa maqalkiisa, aragtidiisa iyo sidoo kale ficilada ugubka ah oo hogaamiyahan uu qaado. caanimadiisu halkaas ayay ka soo dhalaashay. 32 sano jirkan mayalka adag mar walba dunidu waxay kaga baqdaa in uu si fudud u adeegsan karo hubka sida weyn wax u gumaaday ee nukliyeerka. haddaba hogaamiyahan mayalka adag halkii ayuu ka degan yahay dalkiisa Kuuriyada Waqooyi? way adag tahay in si fudud lagu ogaado Kim Jong Un halka uu ka degan yahay dalka uu maamulo ee Kuuriyada Waqooyi, laakiin waxaa la sheegaa ilaa 15 guri inuu ka degan yahay dalkaasi oo ku kala yaalo goobo kala duwan. dhowaan sanadkii tagay markuu dunida si weyn u waafiyay cudurka safmarka ah ee coronavirus, hogaamiyaha dalkaasi waxaa lagu arkayay deegaanka loo dalxiis tago Windsor guri ku yaala. gurigaasi waa guriga kaliya ee leh goob lagu dabaasho, meel tenniska lagu dheelo iyo biyo dhacyo iyo goobo lagu ciyaaro, halkaas oo ku taala bariga Kuuriyada Waqooyi ee xeebaha cajiibka leh ee ku teedsan badda Jabbaan. cunooyinka ay adag tahay in dunida si fudud lagaga helo uu jecel yahay hogaamiyahan mayalka adag. Kim Jong Un waa hogaamiye lagu yaqaano waxa uu doonayo in si fudud uu ku helo, laakiin ay adag tahay dadku caalamku markii ay fiiriyaan helitaankooda. wuxuu aad u jecel yahay kalluunka madow oo qiimo sare lagaga iibiyo caalamka. way adag tahay in si fudud kalluunkaasi lagu soo helo caalamka, laakiin waa cunooyinka uu ugu jecel yahay caalamka. hogaamiyahan cabsida ka samaysan Kim Jong Un waxa uu talada dalkaasi uu kala wareegay aabihii oo kaga geeriyooday. waxaa jira dhaqamo iyo caadooyin uu ka soo guuriyay aabihiis. waxaa qayb ka ah waxyaabaha aabihiis uu ka dhaxlay ee sida caadiga u muuqanaya mar walba oo aad aragto Kim Jong Un. waxaa qayb ka ah ookiyaalaha uu sito waxay ka yimaadeen 1950-meeyadii, taasi oo dhaqan u ahaan jirtay aabihiis in mar walba kaliya ookiyaalaha si uu ka xirto dunida. hogaamiyahan aan inta badan saxaafadu ka soo hor muuqan labiska uu sidan yahay waxa uu ka tarjumayaa fariin hanjabaad ah oo dunida uu u dirayo, waana wax uu kaga duwan yahay hogaamiyaasha kale ee caalamka. way adag tahay isagoo si caadiya u libasan inaad aragto. waxa uu leeyahay hablibis u gaar ah hogaamiyahan Kuuriyada Waqooyi, ninka daada yar ee Kim Jong Un lagu magacaabo. inta badan ma aan hogaamiye hadal badan, way adag tahay in xogihiisa si fudud lagu helo. hogaamiyahan aad uma isticmaala aalada social media, warbaahintu kama soo hor muuqda, laakiin kaliya waxaa la arkaa hogaamiyahan meelaha lagu tijaabinayo hubka ridada dheer, kuwa ridada gaaban iyo sidoo kale goobaha lagu farsameeyo bambaanooyinka ee sida weyn wax ugu gumaadi kara caalamka. haddaba ilaa iyo dhamaadka muuqaalka daawaday haddii aad inala jirtay adiga ahaan hogaamiyahan maxaad kaga tilmaami lahayd hogaamiyaasha kale ee caalamka? waad ku mahadsan tahay la socoshada muuqaalka.